waa galwareed iyo war degdeg ah roob le afka ayuu furtay wuxuu yiri farmaajo waa nabadiid iyo doorasho diid wuxuu madaxweynuhu ku tilmaamay inaanu raali ka ahayn doorashada iyo qaabkay u socoto shargareeya warbixintan waxaan ku soo koobaynaa jawaabta uu rooble hadda ka soo saaray go'aankii madaxweyne farmaajo oo kulan degdeg qarsoodina ah la leh saraakiisha ciidanka Muuse Suudi wuxuu durba bilaabay isku xirka saraakiisha mucaarad ka taageersan war shargareeya oo sheerdhaha muuqaalka dadkana gaarsiiya xogahan si ay ula socdaan wararka saameynta leh ee iska soo daba dhacaya waa hagaag aynu ku bilownee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo u muuqday in xalay madaxweyne farmaajo uu dhimis ku sameeyay ayaa markan soo saaray jawaab aad loo wada sugayay indhahana lagu hayay hadalka Rooble oo ka yiri ka dhihi doono warqadii farmaajo ee xalay ka soo baxday Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in farmaajo uu doonayo boobka doorashada isla markaana wada kasta uu maray inuu caqabado doorashooyinka Soomaaliya dalkan uu ka hulciyo colaado sokeeye siyaasaddu way kulushahay xaalka waa sii adkaanaya balan isla eegno qodobada ugu adkaa ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha qoraalka Rooble ayaa lagu bilaabay musharax gaar ah lagama aqbalayo inuu doorashada ku tagrifalo isagoo la dalnay farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu aad uga xun yahay qoraalka saaka aroortii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha qoraalkaasi waxa uu ahaa mid si ku talagal ah uu madaxweynuhu u carqaladeynayo hanaanka doorashada dalka oo maraya marxalad aad xasaasi u ah sida ka muuqata waqtiga lagu soo beegay qoraalkan oo ah xilli loo ballansan yahay kulan golaha wadashii qaran oo la doonayo in lagu dargeliyo howlaha doorashooyinka iyo ilaalinta hufnaanta doorashada waa qorsho madaxweynuhu ku doonayo in uu uga hortago kulanka golaha taasi oo si cad u muujinaysa inaanu madaxweynuhu marnaba raali ka noqon doonin in dalkan ay ka dhacdo doorasho ay kala soonaan karaan bulshada Soomaaliyeed waxaan la wadaagaynaa shacabka Soomaaliyeed yiri Rooble iyo beesha caalamkaba in madaxweynuhu intii uu xafiiska joogay uu waqti maal iyo maskaxba ku bixiyay sidii uu ku sii joogi lahaa xafiiska isagoo isku dayay in doorashadu noqoto oo kaliya mid ka jawaabaysa doonistiisa ama uu wadada u xaarta muddo kororsi sharci darro ah tan iyo intii uu ra'iisul wasaaruhu la wareegay hogaaminta howlaha doorashada madaxweynuhu wuxuu si joogto ah caqabad ugu ahaa hirgelinta doorashadii lagu heshiiyay isagoo isticmaalaya xeelado kala duwan kuwaasi oo markii mid la xaliyaba mid kale abuurayay ilaa uu saakay si cad oo sharci balmarsan u soo saaray baaqan mas'uuliyad darrada sida uu sheegay Rooble waxa xusid mudan in doorashadu hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu ay tahay mid u siman yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan musharaxiinta tumeysa xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya iyo guud ahaanba beesha caalamkii shacabka kalsooni ay ku qabaan Rooble ayaa weerarka ku qaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale Rooble ayaa ugu dambeyn yiri ra'iisul wasaaruhu isagoo gudanaya waajibaadka qaran ee uu siiyay dastuurka belgaarka ah raacayna heshiisyada siyaasadeed ee awoodda u siiyay hogaamin doorashada iyo amniga waxa uu balan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed inuu la wadaagayaa isagoo kaashanaya golaha wadashii qaranku inuu xoogiisa isugu geynayo dhameystirka doorashada iyada oo ilaalinayo hufnaanteeda maadaama xalka kaliya ee u furan qarankan ay tahay sida uu sheegay Maxamed Xuseen Rooble xaalka ayaa hadda isbedelaya farmaajo sidoo kale kulanayo la qaadanaya saraakiil ciidan wuxuu kala hadlayaa sida lagu hortagi karo ciidamada mucaaradka ee dibacsiyihiin Muqdisho inay soo galiyaan dhinaca kale Muuse Suudi ayaa la sheegay in la xiriiray saraakiil ciidan oo badbaado qaran ka tirsan kuwaas oo ka dalbaday dib u soo laabashada magaalada Muqdisho iyo ka hortagga qorshaha guracan ee farmaajo kooxdiisa ay wadaan xaalku isbedelaya cabsi ayaa taagan siyaasaddu way sii kululaanaysaa Soomaaliya xaalkeedana waa loo sahlo umuuraha daawade halkan kala soco wararka degdega ah wixii ku soo kordha dagaalka Rooble farmaajo oo sii xoogeysanaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.